أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي ملك صديق الدوان السامبا عيد مبارك كل عام وأنتم بخير. طبعا ما أنتم waxaan ku jirnaa ciid الأضحى المبارك maalinteedii saddexaad barnaamijka doorka haweenka iyo waxtarka bulshada uu yeeshay nasiib inuu maanta la ciido insha Allah tacaala dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee meel kasta joogta waxaan leeyahay ciid mubaarak walaalayaal kulli caam wa antum bikhair. ciidan waa ciidii weyneed maaha ciid الفطر waxa waa ciid الأضحى ciid الأضحى waa 7 cisho marka 7 cisho aan si fiican u wada ciidna waxa la moodaa ciidan inay ciidii kala ka hurdo waayo ciid الفطرka waa aad baan ugu diyaar garownay laakiin tan waxa la moodaa inay ka yara qabowda ciidii kale laakiin waxa laga yaabaa dadku inay ka maqan yihiin wadanka ay dhoofeen waayo fasaxaynu ku jirnaa fara badan ilaahay dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta dunida joogta waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli caam wa antum bikhair. dhammaan shaqaalaha TV waxaan leeyahay ciid mubaarak oo wararka soo tabiya magaalada Muqdisho meel walba dunida ka jooga magaalada Hargeysa Boosaaso iyo meel walba Afrika ay isku hawlaan inay isku xiraan wararka ciidda waxaan leeyahay kulli caam wa antum bikhair meel kasta dunida joogtaanba anigu maalkaysa waxaan kale u mahadcelinayaa shaqaalaha London jooga dhammaantood mulkiilayaasha TV-ga iyo dhammaan kamaramaanayaasha TV-yada ku hawlan ee mar walba isku hawla inay hawsha iyo fudeedkeeda idin soo fududeen insha Allah tacaala ilaahayna cimrigooda ha dheereeyo hana saar miisaan xasanaadkooda miisaanka ugu dheer insha Allah tacaala. haddaba daawadeel maanta waynu ciideyna maxaynu ku ciideyna waxaan rabnaa maanta inay telefoonada igala qayb qaataan saa u jeceshiin waxaan igala qayb qaadanaya barnaamijka maanta laba hablood waliba waa wada garanaysaan doctora maxay tahay Sharifa Musallam iyo سارة iyadoo from Sudan insha Allah tacaala Sara marka barnaamijka maanta laga qayb qaadanaysa insha Allah tacaala ciideega waxaan doonaa bil ciidaha iyo taqaaliidkan eegana maadaama ay dad muslimiin oo isku afa oo dadku carabta say u ciidaan Sudan sida looga ciido sida qurbaan loogu ciido sida wadanka Yurban loogu ciido inta waxaan doonaa idin soo mandhiga maanta insha Allah tacaala idinkuna telefishinka telefoonada soo garaacdo igala qayb qaad hortaan ku soo dhaweeyaa ukhta Casiisa Sara ahlan wasahlan bik ya Sara تفضل التلفزيون الصومالي كيف رحب بك اليوم مرحبا بالشعب الصومالي وكل سنة وانتم طيبين وعيد مبارك ينعاد علينا وعليكم إن شاء الله. بشكر المذيعة أمال الكيسي الله يعطيك العافية. شكرا كسر وابنا شريفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة الواد أكتهين وحبضنا عن كلام مقنين هذا ما أنت وحكس وأدين فرنها هدارتون عافيماتك هدار ربتين عيدة ماشي أدين كعيشين أدين اللي حنينا ووحي على أوقع يعني مالك سفرع كسلتها يعني ما أنت اللي عيدو أدين لقى فايدة صح. طبعا ما أنت صار معانا يا أخوان وحنا لا جوكتين السودانية ده وحنا دنيا صارينا ودي سؤال فربنا وكسر حق عيدة. طبعا يا سارة طبعا هات تلفزيون صومالي لكن السودان والصومال شعبين شقيقين واللون نفس الشيء بس الكلام طبعا الصومال يتكلمون بالعربي طبعا ما فيها بس الصوماليين شعب طيب راقي ما شاء الله الله يحفظهم ويديم الصحة والعافية يا رب ويخليكم آمين للأمة العربية إن شاء الله الله يخليك. سارة طبعا احنا عيدنا في البلد هذه وشفت العيد في الجو لندن كيف يعني تكون لما تكوني في بلدك وتكوني في العيد ايش الفرق بيناتهم؟ فرق كبير لما تكون في بلدك بتحس وسط اهلك وجيرانك وحبايبك وقرايبينك بتحس بالعيد بتحس بالبهجة بتحس بالفرحة والبلد هذه طبعا تحس فيها العيد بس عيد مبارك الصلاة ما فيها عيد ابدا نهائي سبحان الله فعلا. الواحد لما يكون في العيد مركب بلدك تكون سمينة العيد في بلدك يكون كل شيء متحرك يعني البلد الجيران وكل العيال والشارع كله مملوء لكن هنا يعني بس في الحي اللي انت عايش انت لوحدك ممكن يكون او 3 جيراني اثنين marka aad u sharifay wadanka aad joogtaa maxaad had ciid u aragtay inaad soo ciido inka ciid ku ciidna agtan noqoya والله عيد وارق لما meesha بلدك waxa waaye runtii ciid ma horta sidii hore adiga inaad ciid ku faraxdid ma ahna ma ka saysid beledka inuu kula faraxsan yahay ma kula socdo tii labaadna orod ku dhameynaysaa intaad ka tagaysid masaajidka ka soo laabanaysid ka soo noqonaysid waqtigiiba kugu dhamaanay dadkiisa isku imaan lahaayeen laakiin waxa u fiican anaga aan sameeyna horta familkeena meel baa isku imaanaa familka qofka u weyn guriga familka u weyn gurigiisa la tagaa laakiin qabla inta meeshas la tigin marka hore gurigaaga waa inaad ka shaqaysiisaa aad ku xiyeshaa laakiin Soomaali ciidiis waxa waa dad isdhaqan lan isla wadaan aadaankii iyo qayladii iyo buuqii wixii dhan waa isla socdaan waa maqlaysaa waa fiil garanaysaa يعني وكسيسا لكن كان waxa way goormaad xagga ka gaartay adoo ka fikiraysid goormaa gurigii kala hagaajisay goormaa wixii kala soo laga yaabo xitaa inaad tax message ka ciid mubaarak qofkaad ku leedahay qofkii aad ka gaarsiin bad lawdid qofkii ka xanaaqaba اخت ساره الاعياد لما تيجي الاعياد الواحد يستعد للعيد في السودان طبعا الحنه يعني نتكلم عن السودان الجو السوداني كيف يكون الجو السوداني السودان طبعا بيحضروا العيد من قبل اسبوعين تقريبا بيخبزوا حلويات
بيمشوا الحنة، بيعملوا في الصالون مناكير، وبيجهزوا، بيشتروا ملابس العيد. يعني بتحسي بمتعة العيد هناك. لكن هنا دي الفرق انه ما في اي متعة، لا في قرايب عشان يكون حد كلهم مشغولين ما فاضيين ويشتغلوا كمان ما في وقت حتى اخذوا اجازه. بالضبط كده. لكن عيد مهما كان العيد عيد الحمد لله طبعا العيد اكيد. لما تروح المسجد تحس العيد بالضبط. هو بعد صلاة زادك العيد مكان تقنو markaasaan kasina inuu ciid yahay inay ciid tahay inta kale jidka iyo xaafadii iyo ciid inuu yahay wax kale ma kala kasaysid ka waran ciid al-adha iyo ciid al-fitr maxaa u dhaxeeya shariifa baladaan ku weydiinaa ciid al-adha tolo ciid al-fitr ciidna horta way tii weyneyd waan ognaynaa ciid al-adha tahay 7 cisho dadku waxay moodeen maanta qoro ciid tahay talana waad ka dareemeynaa xitaa inay si u hurdo xitaa dadku markay baaga la soo dhigi jiray waxay carruurta la yacan tan inaan xoog u dadaalnahayd ba ma aha ciid al-fitr ma inaan u dadaalnay ciid al-adha maxaana la caajis miyaan noqonay dadkii baa wadan ka dhoofay ma ciid baynu garan lahayn ciid al-adha ciid al-fitr ciid al-fitr horta ciid u weyn waa ciid al-adha naam saxad maadaama la dhahay ciid al-adha waa ciidkii hilbaha la cunayay la qali jiray adha mana la daalana ciid magaciisa Ramadan taaba la daalay waa daalan yahay dadka inta cabaan waay laakiin haddaad fiirsid marka maalintaas yani ciid rurun ah beledka xataa waxaad arkaysaa meel islaamig oo loo sameeyo ciyaalka inay ku cayaaraan siirkiyaala loo keenaa ciyaalka meel ay isku imaadaan center camal oo ay isku tagayaan oo waxaan ka wadaa yani meeshan baarkaha wax loogu xirxiraayo oo isku tagayaan laakiin jidka dhan waxaad arkaysaa wada laba socdo laakiin ciid al-adha waxaad aragtid yani waxaad u malaynaysaa ciid weyn oo inuu ahaa kii hore inuu fitr oo tanbal ha sabab qaboobay xaqiiqdi marka hadaan fikirna fiirin marka meeshan waxay isku timid ciid al-adha waxa waay ciid wuxuu ku aaday samar ku soo aadi naam dadka ka maqan wadanka samarkiina waxa ciyaalkii iskuulku waa loo xiray marka waxay u kulli familyaasha kulli wada dhoofayaan kii tago Soomaaliya kii beledkiisa u baxo kii adiga Turkiya adiga waxay kala tagayaan balad muslim kale waxa la safar badan kala galan taas oo marka wadanku kaas waa wuxuu yani buuq u yaraaday iyo socodkii iyo farxii badnaa u yaraaday laakiin ciid al-fitr waa ciid yani maanta oo dhihi lahaa yani waa dadka way tacbaansan yihiin ramadaankii haddana waqtigii dheeraa laga soo baxay waad aragtay meeqa saacdaan soo meyn 18 صح aan soo meyn laakiin saas ay tahayna waxay ahayd ciid aad السؤال اللي سالته يا ساره العيد الاضحى وعيد الفطر طبعا فيها فرق اكيد. العيد الفطر طبعا احنا عارفين عيد فيها رمضان والصيام وبعد الصيام فيها فطر يعني كل واحد يدفع صلاه قبل صلاه العيد الفطر الزكاه وعيد الاضحى عيد يعني الناس تضحي يعني تعمل الخروف ليش العيد هذا العيد الاكبر تكون العالم يعني شويه غامضه ما فيها يعني تحركات زي العيد الاضحى العيد الفطر سعيد لانه هم اصلا بيكونوا في اجازه لانه ده العيد الكبير بيصادف اجازه فالناس بتسافر فعشان كده بيكون ما عنده طعم. العيد اصلا هو بعد صلاه العيد انتهى خلاص. لكن لما كنا في البلد الخليج وفي افريقيا وفي السودان في الصومال بتحس بطعم العيد اكيد. ايوه بس هنا ما تيجي من المسجد وتصومي وتفضل الناس وهدايا عيديه وكذا. ايوه نعم كان في يعني في يعني فرق كبير لكن هذا البلد يعني تحس فيه العيد اما dadka isdhexgalkii miyaa dadkii baa ciid ka daalay ma garan marka ciidna waxay ciid yar iska qaayada laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin hadaynu si fiican ciidna hum shay wax ciid bisaxa hada hum shay dhammaan ummadda muslimiinta mar labaad waan salaamaya oo halkan waxaan doonayaa intaan la yaqaanin horteen hooyadaysa inay cabdi salaamiya abaykaysoo cabdi qudciya walaaladay meel kasta dunida jooga inaan salaamaan doonaya qof walba oo muslina inaan u duceeyaan doonaya qof walba ciidan al-adha dad badan baa yiri ciidan tacsibe noo ahayd oo wadana badan ka soo hadlay oo aniga ii soo dhigay taajirada fara badan oo dhibaato ku dhacday dad la xiray Soomaali dhibaato kama dhamaato laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryay ummadda Soomaaliyeed ilaa ilaaha illa Muhammad rasuulullah ku ashhadata ee adduunka joogta inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala u gargaaro dhibaatadana ka saaro qof walba hooyo dhibaataysan ama ilmaheeda laga xiray ama iyada dhibaataysan ama ninkeeda ka xiray ama dagaal ku socdo ama dhimasho ku socoto ama dulmi ku socdo inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka qaado waayo dad badan baa nagu jira muuminiin oo qalbiga ka duceeyo oo bini aadamka u duceeyo oo ducadiisu kacdaa in wada ogna dhamaantiinba inta xun ee dhibaatada wada way yar tahay waxay inta ay kuna xumaanta u sameeyaan Ilaahay baa ugu talagalay dadka dhibaan laakiin sida aakhir loo dhibo laakiin qofka muuminka la dulmo isaga ducadiisu waa mustajaaba dadka waxaan leeyahay sabab Ilaahay bari subhanahu wa ta'ala Ilaahay baa wax buuxiya Ilaahay baa dadka u gargaara Ilaahay baa subhanahu wa ta'ala qofka siiyo wuxuu jecel yahay bini aadam Ilaahay adbo kala ku abuuray waxba kuma qabanayo Ilaahay hala saaro qacanto إلهي وحول دعاء مركز وإيه فرنته هجا عاجزنا تلفونه ونوفر إن شاء الله تعالى وقال قيب قاعدين إن شاء الله تعالى شريفة إن طبعا بهرت ما أنت كسوجا يا دكان وحياة بدن كأسوجا يروح حنون يروح وحشرا دبر حنون بين بدن دمر كقبصة دم بوقت كل
dhabar xanuunka waxa keena ma taqoon sababta miyaa bahalkeen ku dultay mise waa may kaas ku ma soo mas'uulin kale marka waxay jirta dhibaato yar oo haweenka inta badan ku qabsata dhabar xanuun ay leeyihiin kala garan mayno ma kaliya baan xanuunaya ma dhabarkii baan xanuunaya ma muuq baan galay ma lafaha aan xanuunaya maxaa nahaya oo aniga in badan dadku soo weydiiyaan maadaama in badan inuu kala maqlaan marna ka dhoofay anigu moogtahay marka taana bal yar yar sharax waa dhabar xanuunkan dhibaatadan haysata dadkan maxay yihiin halkan ay xanuunayso qof walba dhabarkuun ka cabanayo le kaliya ma lay xanuunaya doona ma kaliya ay xanuunaya ciladaas horta way u badan tahay Soomaalida markaan joogay dhakhtarka Faransiiska waxaan arki jiray dumarka imaadaan cirbad lagu durduro iyo waxyaalahaas lagu sameeyo laakiin waa kala baxsan yahay xanuunku waxa dhici kara inuu masal siya muruqyaha u yahay muruqyaha macnihiisu waxa waaye مثلا adigoo يعني tabaabashash adigoo rabin adigoo ku fikrin inaad u leexatid oo saas hal mar tiri inuu muruq ku galay muruqi ayna twist u suubinaay kaasna waa jira mana la xamil kara xanuunkiisa especially u galaya dhabarka waxaa jira mid kale defroze oo dhaha asaga laftiisa isdhex galaya uu qaboobaya waxaa jiro kaleeto saddexaad waxaa keena waxyaalo badan keena xarakaadku uu keena sidii qaab dar aad wax u qaadaa keeni karo sababtoo wax kasta wuxuu leeyahay physical sidii wax loo qaado qaabkii loo qaadayo midna waxaa jira dhabarka laftiisaba inuu yani uu jiraba in xanuunkaas ay ka yimid lafaha laakiin badanaa wuxuu u badan yahay muscleskaas ay tahay waxaan arkay waqtigan dad badan sidaas aga cabanayaan xagga dhabarkaas ay tahay xanuunkiisa laakiin wax baaba ay way hadaa adiga aad qaadatid waxa la dhaho paracetamol ama anti inflammatory dhahan yani inflammation ama meel yani gaduudatay ama meel oo yani laakiin dadkii waxa imika muddo waxaan ku hayaa message fara badan xaqiiqdii dhibaatada dhabarku ku soo dumar ay ku soo waxay kula nagu soo noqotaa noqnoqod istimir yani markuu bil bay ka baxaysaa bil baa marka kelida dadka waxay kala garanay meesha kelidu ku jirto dhinacaas uu badan yahay musalaska oo defroska uu sameeyay ama twisty uu sameeyay dhinacaas uu badan yahay marka waxa waay waxa saytu wax baa daxalna ala mawduuc ilaaj shويه laakiin hadii ay dhahaan wuu soo naqnaqanaya marka kaas lafaha ma aha waa muscleska مسلسكن waa kugu soo noqonaa qof aan ku noqonaynin man waa ku sheeg waxa keenaa physically marka waxyaalo qabanaysid adigoo positionkii loo baahnaa u taagneenaad oo positionka loo qaadamo wixii si yar khafiif u soo qaadid ama suxun foorasada ama halkaas kaga baxana insha Allah taala kaas marka sahal leen waay uu baxaya hada adiga ku dadaashid u baahna daawooyin badan wax uma baahan اوكي صار نرجع في العيد لان موضوع العيد ماكو داعي نخش موضوع لكن عشان الدكتوره هذه سالوها كثير عن الموضوع المرض هذا فنحاول نستشير الموضوع هذا ان شاء الله تليفوننا ونوفر ان شاء الله قفك دون الجلسه وقيب قادم كان برامجك ان شاء الله تعالى دور كابينك قفك دون سان بوهم بلين كلتان قفك دون شان بسلامي كلتان برامجك دون سان سلامي كلتان مكان ان شاء الله تيفيد برامجك ونوفر يا تليفوننا بشيرنا وينو جوج ان شاء الله تعالى ساره العيد 7 ايام واليوم ثالث يوم العيد طبعا بكره ماندي حتعيدي ولا حتقولي خلاص العيد وقفت على 3 ايام العيد خلاص ليش ليش يا ساره العيد هو اصلا العيد الكبير 4 يوم ولا 7 ايام لا 4 يوم كذا يا شريفه 4 يوم 4 يوم ايوه العيد 4 يوم اول شيء اول يوم الناس بتذبح الذبيحه وبيكون في عندنا احنا السودانيين عندنا بنعمل المراره بنعمل اليوم الثاني ولا اليوم الاول؟ اليوم الاول اكيد أيوة. منتظر سنيه السودان ثم انت ugu horeysa maxay tahay عيد الاضحى هي اللي بتقفل بينكم ونقلنا شفت الدنيا احنا كلنا نفس العادات أيوة. ناس تعطي ناس وناس يعني أيوة. بالضبط كذا بنعمل الشيا بنعمل في شطه عندنا الشطه السودانيه العجيبه ما شاء الله عليها بس خطيره وبعدين في المراره ايش المراره يا ساره؟ المراره دي مراره ما حيتها في الكبد مش كده المراره هي بتجمع في الفشفاش في الكبده في الكرشه يا الاسبوع دردره تليفون خلينا نخش التليفون نسال في ناس يتصلوا فينا ان شاء الله تفضل مع صدق هلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا لا ادبكم سلام معانتو adiga iyo barnaamijka mashariicda oo kula daadinaysa gabadha kale aad baan islaamay ciid wanaagsan wal magaca walaalo إكرام وايا إكرام إنسان وقرن وايا عيد وناكسن ولا معانا هذه قبل هذا يربونكم سلام يا عيد مبارك سال وقع عيد من باص ولا خير الله كسيه عادي عاد لو عيد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله برواقة لو عيد دمان خير بنباسنا عاد بي ودا عيدين ما شاء الله فرحت بين ugu dhamaatay inkastoo geyga Kenya qaybta dadaabiyo
dhibaato ay ka jirtay laakiin aad baa looga iiday inta kale aad baan u fiicannahay maasha allah aad baan i salaamayaa barnaamijkana aad baan ugu faraxsanahay maanta soo socdo ciid wanaagsan baan leeyahay dhammaan asxaabta intaqaana familka qaraabada dhammaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan sanadkaan sanadkiisa allah nagu gaarsiiya bashbashi amiin aad baan kuu salaamaya ikraan walaali ciid mubaarak kulli caam wa antum bikhair warqadii aan kuu soo diri doonana kasoo wada jawaab waayo sidaan arrin bay naga dhexaysay labadeena insha allah taala ii soo jawaab walaali macana aad baan kuu salaamaya insha allah taala aad baan kuu jeclay ciid mubaarak kulli caam wa antum bikhair ilaahay meelahay dhibaatadu ka taagan ilaahay subxaana wa tacaala ha u gargaaro qofka dulmiga wada isagunba ciid haddii dulmi la wado qofka dulmiga wada isagun dulmiga ku dhacaya mana dheera mana gaabnin laakiin imka nafsigu u dheeraya sidii hore ma insha allah tacaala هيا سارة كنا بنتكلم عن العيد المرارة والأكلات والشطات حاجات العيد يا سلام أحلى حاجة هو أول يوم لأنه فيه الشية فيه اللحمة محمرة فيه الشطة وفيه المرارة عامة وفيه الكمونية يا سلام هذا كله أكلات عجيبة لكن خليني أجوع الحين هو قاعد شوطي قاعد شافي خلطيك سواء فيه نوع وهي بكون نوع إيكو هي بكعاد إنك هرتان يلي ببعن بقى تخيل ما أكلت ولا لحم العيد هذه يا سارة طيب أنت بتعملوا شنو؟ تليفون شريفة قفك لو يدين قفك خدك صوق لو يدين إن شاء الله تعالى هلا السلام عليكم عيد wanaagsan baan leeyahay عيد wanaagsan oo magaca هلو هلو عيد wanaagsan wal kulli caam wa antum bikhair magaca walaal khayr Allah ku siiyo ciid wanaagsan walaashay madiina la yiraahdaa madiina ka joogta khayr Allah ku siiyo walaal macaane waxaan joogaa Switzerland aad baan kuu soo dhawanayaa madiina Switzerland ciid wanaagsan wal kulli caam wa antum bikhair طبعا waxaan ku jirnaa ciid al-adha al-mubaarak ciidii weynayd sida looga ciiday xagga Switzerland adigu caafimaadkaaga iyaad salaamaysaa soo daa si fiican looga ciiday waa lagu fiican yahay inay ku kulli caam oo anta baqeer ciid mubaarak inta islaam oo maran salaamayaan ciid mubaarak leh annakuna adaan ku salaamayna madiina walaal adiga iyo caruurtaada xaajigaaga waxaad jeceshay ahalkaaga qaaribkaaga inta wax leena ciid mubaarak kulli caam anta bikhair ciid kale ilaahay ku gaarsiiyo bashbash barwaaqo walaalo amiin amiin baay kulligeen badinka adna sidoo kale Allah waxaan weydiin lahaa baay gabadha dhakhtarada waxaan rabay inaan weydiiyo nacam sin iyo garab xanuunkooda horta marka hore sinta baan ku hormaree sinta ay xanuun marka waxaan dhihi lahaay sinta horta muruq ma galaa sinta muruq ma galaa sinta muruq waa galaa waa ka ugu daran ba sinta wili waxa u daran markuu makandeli wax la dhaho mindeliga markuu ku fariisto dhinacaasayto macal lugta macal sinta u siina sinta muruq waa galaa si xun u galaa wili sababtoo masalka badan aniga هيا مدينة وضح دخسة ولا لا ما أنت عيد أنا قلت لقى اللي برا نعم حنون حنون كيجا وحوي هاي سنتا سئالة يحنون تو مركا وحي يقول درنت عن فديو مركان استاجو صعد كاي دبوا وحد بدأني سنتي إسكحر مركا شد حنتي بالسدام سنتي بشهادة كل هذا وحموده إنه مرق عمل كجرو دكتور كم أدي مركا دور مرة دكتور تجي وحال يجي هذا واحد أنك عرقنا مرحنا واجرا هرت مرقة سيت سومالي دات حسوسة سندبيو اللي يجري سندبيو سبيشال وكل بدنا كل يعني دمر كمرك أورلي لكن مركي دم وحركنا دات بدن أو أيون أور كله هين مركي سيدها سنتا يحنونا معاكو على أور نملي سندبيو أنتو كاجين مركو واجرا أنا أورنا مليه أور مليه صح وان كل شيء سومالي حتى واجرا حنون كاسنا ما كان هذا وايهان دم بس آد ويقصي كرنا مركو يقصي كرنا مركو اوكي مدينه مالين كلام كدغنا برامجka maalin kalan ka dhigi doona wiiga dambe insha Allah ka hadli doona waayo uu sheegay barnaamijka ana su'aal Facebook la igu soo waaray marka insha Allah wana muruqa dhabarka gala ama sinta gala ama maxay tu kaliyaha la moodayo dhibaatooyinkaas oo insha Allah taala wiiga dambe uga faa'iideysan doontaan Shariif Musallam aad baan ku salaamay kulli caam inta bخير ساره كنا بنتكلم عن اكلات الشوات وشوهتيني لكن على الفول والله انتظرت كل يا وقت الصوماليين انا كويس سمعنا انه لكن ايغو شيء anaga Soomaalidu waxa hilibka leen kasayna inaan ka cunno laakiin ayadu waxay ku tir waxaan sameeynaa almaraara san hadda ilaa hadda la yaabsana المرارة دي يا ماما يعني يعني هي
بس بتتغسل نظيف وبيقطعوها. ايش يقطعوه؟ المرارة. ايوه الكبده، ميه كبده، الفشفاش، الكرشه. نو هو كيف هذا؟ لكن عيريني كنت ها ما يطبخوها صح؟ ما يطبخوا. ليش يا ساره؟ لا. كيف طبيخ؟ والله هي كده انا مما احنا على كده عمري ما سمعت. قينك صورت عرفت نشوف شنو قينك ويكون والله العظيم شطه وبياكلوها. الله انا سمعت هذا عند هذا ايش في ناس كده لا الحبشه لا هي عندنا احنا كده. انا عرفت الحبشه بياكلوا. هلا السلام عليكم. هلا ودكتور ويلة داعية aad baan kuu salaamaya waa ku jirta khadka wal magacaa السلام عليكم عيد وناسن ciid wanaagsan magacaa wal khayr allah ku siiya kulli caam inta bikheer كل عام وانتم بخير وفاطمة إبراهيم إسماعيل شوكتا هرقيسة faadumooy waxaan kaa salaamayaa qalbiga iyo maskaxda iyo inta inoo dhaxaysa noolow ciid mubaarak in adeer macaanay barnaamijka adiga ikraan dee meelaan qabtaba garamay ciil caridii miska daya barnaamijka igu haysa maalin walba axad uu idiin soo gala barnaamijka wal aad baan kuu salaamaya faadumo walaalo أنا برنامج كاسا مصري مقبرة وحن كوية أنا علي وحن ويدين رباين إذا أنت السودانية دعاء هي إذا أنت كلايا نعم يلا فاطمه انا اقول نقطه اد وجعلها هي سؤال كانت عاوزه تسالك سؤال يا ساره والله من الصومال والله ان شاء الله فاطمه يسوون نقون دونتا عيد وناكسن بان ولا كله معانا لمبر كذا بشير يقرا والخير الله قصي ويا فاطمه واتحنها برامجkeedii ikraam ba labada hablood khayr ilaahay badan siiyo aniguna waan ka gaagaabi laakiin maalin khayr qabto ma isfaan su'aal ka doona insha Allah ta'ala اوكي ساره كنا بنسال خليت اذا عندك سؤال حتجيك سؤال يا ويلك يا ويلك المهم انت waxaan iyagu waxay ku cunaan qayrinka min غير طبيخ المراره كبده وكذا أيوة. كيف يا ساره تاكل من غير ما تطبخوا والله دي من لما صغير بيقطعوها كبيره. كيف تمضغوا يعني؟ سوي لك عاد ما الفشفاش ده ما هارد يعني الفشفاش فشفاش. لا حول ولا لونه زي حتى اللي كده بتلقي تحس مكريان ياكو يذو قيد سمام ولا بس بيكون دران سمام ممكن ما لا بعرف ما بخيا ما انت كليده كوده بالسوداني فشفاش صح صنببكي سدحده ها انت يا ريان wixii ba caloosh ku jiray mandhiciirada iyo wixii inta yaryarayaan بس iyo khal iyo waxaas خوفتيني صح انا كنت بسمع انا مره عزمتني امي في حد عزمها هو اذا ما عرف اللي قاعد اسمه عزموها الناس السودانيين اول ما جابوا له الاكل ما كنت لو كان هو قيد بس دي لازم لازم معقول لكن صار كيف لازم لحد الحين العاده دي موجوده مما انا اتولدت ولحد دلوقتي هم دقائق. ما غيروا العاده دي نهائي waxay tiri cuntada yar beerkii wadnaha iyo calooshii waxa soo bas sanbabka inta la gogoyo bas baas kala soo dhigay lindana marka saydo sida la qaya nama inta yar ma Chinese biyaklu kala Chinese inta yar tan ku baqi jirtay كولا شريف هذوك بالله أرنتهم كسر قاعد. أنا عادي أنا وحواي سيد الصومال وكلا تبريسكي يهلبيه على فورنا لقى دقايق عن صلاة نوع على سمينا هي ونسوي كمان يعني شطة بالكوكونات نسويه بالشطة بس أو قنبال لها بس تون بصلي على السلام عليكم. تليفون بكتير عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والهلاو. هلو وكم خلايا عيد ونكسر كلها مالي. مقعوا والخير الله كسيه. magacayga farxiye cali ay dhahaa ciid wanaagsan ciid wanaagsan kaad joogtaa farxiye Bristol aan joogaa baay aad baan kuu soo dhaweynaya farxiye walaal ku soo dhaw barnaamijka doorka haweenka maanta waa maalinta saddexaad ee ciid al-adxa al-mubaarak kulli caam inta bikhair walaalo alaalo horta kow adan kaa bilaabay ciid wanaagsan programkaagan axad kastaan daawadaa allah yacizak waan ku jeclahay qalbigaan kaa jeclaha walaalay anna waan ku jeclahay walaalo qalbiga igu jiray indhahan ku arkay inta waan kaa jeclay noolowna waan ku leeyahay ciid wanaagsan waxaan rabaa hooyada inaan salaamo oo magaalada Minnesota degan xasna shiro xuseen فاطمة علي عبد السلام فوزي علي عبد السلام ما شاء الله دمانت فاميل كيك من صوت الدقن ووضع السلام آيا سومالي دتك الدقن وان سلام آيا دمان أدينا فاميل كاي قويس كاي دمان وان سلام آيا حواري شريفو يجاود السودان تيزن عيد وناكسن عيد فرحد هذا باني سو قراعي aniguna waxaan ku leeyahay farxiye walaalo dhammaan ahalkaaga iyo hooyada iyo reerkaaga iyo familygaaga iyo waxaad jeceshay iyo TV-gaba inta way ku dhageysanaysaa waxaan ku leeyahay ciid mubaarak waa maadsantii iyo wiilka injineerka Bashiir isna waa salaamaya axad walba nala joogo programka hooyooyinka aad buu mahadsan yahay adiguna aad baad u mahadsantahay walaalo jazakallahu allah khayr ciid mubaarak walaalo waxaad jeceshay ilaahay ku siiyo dhammaan ummadda muslimiinta waxaan leeyahay ciid mubaarak waa ciid العافية waa ciid التسامح carafaynu soo marnay ilaahayna waxaan ugu baryaa xujaajtii iyo dadkii soo gudanayay xajka sanadka inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku soo celiyo nabad qab maxay tuuriyaha gacaanka shariif
inuu ilaahay isna soo celiyo oo si fiican u soo celiyo waxaan u barayaa isagii xaaskiisaba ilaahayna ka taqabbalo wixii xajaaج soo gudatay fardat alxajna inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka taqabbalo oo noqdo xaj mabruuk وسعي مشكور ان شاء الله تعالى تليفونه ينوفر ان شاء الله تعالى شرف عنتين كان لين صار السؤال لسه ان شاء الله فاطمه تتصل فينا من هرقيسه وتسالك السؤال يا رب العالمين ان شاء الله قول ان شاء الله marka ay ku xaway cunaan ما كاس عادة waa carabta dhan waa cunaan لحد الحين صار العاده موجوده ايوه ما انت اكلت يا ساره انا ما حصل اكلتها في حياتك لانك كنت عايش في السعوديه صح ما بالضبط كده لكن انت بتحب العاده دي تستمر ولا نوقفها العاده السودانيين ما العادة تتوقف السودانيين ما بيوقفوا ابدا لكن أنا المشكلة كيف الحيوان هذا لو كان مريض ولا يسوي له كشف طبي هذا الفيترنري بعدين بعد ما يعني لازم عيرين هذا عنيش سبحان الله بهالكاس حاجة انه بعد ما يعملوا الحاجة دي في حاجة شفتي البول بتاعه بقول بالضبط كده بيعرف من البول يعني الحق بيقول لا البول هو بيقطع الحاجات بيحطوا فيه البول البول هذا هو الذي يقتل ممكن ايوه صح هم يعتقدوا كده انا ما دكتوره لكن انا مش هذا يعني جوك هذه انت وين waxay tiri caadi taqaalid baan leenahay maalinta iida anagu waxaan cunaa hilibada iyo reebeerka iyo mindhaqarka iyo maxay tabe wixii oo karsaneen baa la jarjaray sanbabada la jarjaraa marka wixii baa la googooyaa basbaas baa lagu daalanaa qamteeda waxyaalaha lagu dardaray ha marka dadku Soomaaliyeed ma cuno ka baqraaba ka carayna marka way jirtaa caada Suudaanta way leedahay Junub Suudaan baa xitaa Ethiopia leh wadana badan في بلدان كثير عربيه جيرانكم الاتريا كلهم ايوه الاتريا way sameeyaan marka laakiin waxaynu kanay dadkeena kala waa Soomaali baynu kanay inuu soo karsan baynu sii dilnaaba ka dilnaaba fitamiinka احنا ما ناكل حاجه دبنا لكن ولا جرا تليفوننا نوفر ان شاء الله تعالى عيد مبارك waxaan doonayaa Faadimo inay Hargeysa ku soo noqoto in sha Allah تعالى warbay soo wada Faadimo su'aal bay u soo waday Saara in sha Allah تعالى inta soo wadaanada weydiinaysa Ilaahay waxaan ka barayna soo noqoto in sha Allah تعالى Shariifay waxaan baa la arkay adduunka صح marka لما صار الناس تاكل ما تمرض صح لا ابدا الحمد لله الله يديم السلامه ياكل معاه ايش لا بياكلوها بسبب الشطه بالشطه يعني ايوه بياكلوا طعمها تاخذها بايدك تدخلها بالشطه على طول ايوه واو هذا عجيب ده اركب واحد لا كل شيء يعني في ما بس ده النوع في شيء عندنا في لحمه محمره عندنا كمونيه أيوة. حاجات كثيره انواع أيوة. ما بس دي الحاجه الحلويات cuntooyinka carabta ودينا sonkorta macmacaan kale ay sameeyaan bal ciid iyaguna haye عندنا البيتي فور عندنا الكعك عندنا الغريبه عندنا البسكويت ما شاء الله حاجات حلوه كل الحلويات انا كنت واقفه يعني احنا بنسوي كمان حلويات معمعانك يعني كثيره جدا يعني نسوي بالحلويات باللوز ونسوي حلويات بالسمسم الحلوه ده بدنا نسميها شريفه الحلوه ده الحلوه هذا اصله بيقولوا يجي من عمان من عمان الحلوه العمانيه بس هذا نعمله بالبيت لا 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 يعني اصله يعني من عادات اللي احنا كمان بنسوي في البيت الصوماليين يسووا هذا الحلوى يعني يسووا يعني اشياء يحطوا السكر ومش عارفه هذا يس صومال وكل شيء في يعني زي البطاطا كبيره كذا فارغ يحبوا ياكلوا هذا زي النوع مهوجه كينيا وقسنا شكلها كينيا والهولا يا كاسيت باودر على اللي يسوي بالباودر هذا فاكهه انا حلو بعدين انا معاك هدوك نقول نعمل البخور بالسكر والسمنه ايوه ساره طبعا الصوماليين والسودانيين نفس العادات والتقاليد عندنا عادات والتقاليد واللون وكل شيء كل شيء ايوه زي بعض وبعدين جار بعد يعني اشقاء اكيد ايوه في السودان فيها مليون صومالي طبعا فيها اكيد الجامعه في السودان السودان وضد في عن اهل الكرم السودان طبعا مشهورين بالكرم كمان وضدك السودان توقف في عن كرم كيقانا كرم كيقانا نيك الضيافه يعرف وحي يقانا ضيافه سددك لو سو دhoweeyo maxay tahay waxay yaqaan si dadka u sooriyayaan jaarka way yaqaanaan yani حتى معرفه الجار marka dad badan Suudaanta la saaxiib waxbay ka faa'iideen استفيد منها كثير السودان حقيقه والله العظيم يعني يكو waxay garma macna wuxuu garanay ma macna الجار xaq wuxuu kugu leeyahay garanayaan wala kala guursadaa waan ka guursanaa Suudaanta waan soo eegnaa isku asal baanay dadka kale carabaha kale cadcadi kuwa kale shaqo laakiin isku caadaad xinni baan isla garanaa toobka baan isla gashanaa وحاجات كثيره يعني الشعب السوداني والشعب الصومالي حتى الملابس ها كله اشقاء يعني نتزوج عن بعض بحب الصوماليين صراحه ما شاء الله انا كمان ان شاء الله والله انا كمان شعب طيب احنا من زمان نعرف الصومال ان شاء الله اتمنى لك يا ساره تتزوج واحد صومالي ان شاء الله ان شاء الله الكريم ورجع عندنا صار انه هي صومالي وانا ان شاء الله تعالى ليش لو انا سدح قراء على والتقاليد كل حمر ان شاء الله تلفوننا نوفر ان شاء الله تعالى ورا العيد وناكسن ورياشا ka hawl gala magaalada Muqdisho aad u salaamaya
waryaha magaalada Denmark jooga Sharaf baan salaamaya isna wararka fiican soo daaya kuwa reer Kenya salaamaya waxaan salaamaya dhammaan shaqaalaha ka howlgala ee isku hawla wararka dadka wararka soo daaya ciyaar ma soo daayaan wararka rafaad dheer bay ka soo galaan jihaad dheer bay ka soo galaan xaqiiqadaas far badan bay ka soo galaan jab bay u soo maraan kamarada isitaan kulaylka dhacaya bacadka dhacaya dhibaatadii oo dhacaysa soo dubeen kuwaas aad iyo aad horta juhdi weyn u bixiyaan dhanka kamaradayaashii dadka isku hagaya waxay sameynayaan kombiyuutarada sa ugu foorara kuwa horta ilaahay unbaa xaggooda lagu ducayn jiro ducada iyo ka saaranta waayo anagu aan fadhinaa wuxuu baan soo diyaarayna wixii baan sii deynayna laakiin dibta iyo ka saaranta isku hafaya wixii oo isku ridaa wixii xun kala qaadaya waliba nimada wararka aad baan ugu salaamaya aad iyo aad uga soo shaqeeya wararka dadka u soo deynayaan xaqiiqda raadinaya waa wax hawlan maaha warku insha Allah taala ciid mubaarak waxaan kale halkan ka salaamaya dhammaan hooyooyinka Soomaaliyeed ee dhibaataysan cabasho fara badan Facebook soo dhigaya ee ii soo duceeya haloo duceeyo walaalayaal oo sii share gareeya qof walba oo dhibaataysan oo duco u baahan oo Facebook soo galiya muuqaalkiisa waxyaabaha xun ee bilaa macnaha foosh xun lama share gareeyna waxyaabaha faa'iidada qofkii daacad ugu duceynaya qalbi to qalb taana aanu duceynaa insha Allah taala khad baa ku jira injineer Bashiir halo salaamu calaykum halo السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبتي مقعة عيد وناكسن ولا عيد وناكسن حبيبة قلبي مقعة ولا على قلبي خير الله كسيه أم زكريا والي هذا ولا ونجي سلام يا دمانتين أديك يا لوضع حبلوتك كلها فردية ما شاء الله أم ما زكريا شاء الله عيد وناكسن يا ولا هكا شوفت ولا معاني نوروي بنشوفه aad baan kuu soo dhaweynaya um Zakariya oo ka soo hadlaysa Norway walaalo aad baan kuu soo dhaweynaa ciid wanaagsan saa looga ciiday xagga ay Norway walaal macaan ما شاء الله si wanaagsan baa looga ciiday ciid wanaagsan baan idin leenahay dhammaan shaqaalaha Somali Cable TV programkaaga aad baan u jecelnahay ciid wanaagsan walaal adiga iyo dhammaan labada hablood ee kula fadhiyo kula daadihinaya barnaamijka Sara oo from Sudan iyo naam anuguna waan ku salaamay um Zakariya walaalo waxaan ku leeyahay ciid wanaagsan kulli caam inta bixeer inkastoo Norway dhibaatooyin badan ka taagan tahay oo caruurtii laga qaadanayo hooyooyinkii maxaa halka xoogwal nooga waramaysa walaal macaan family badan baa laga qaatay caruurihii walaalahay ما والله ولا قاعدة لكن إن شاء الله إلهي بانو برينا ما شاء الله إلهي وبري والله اسكت ضفنا هذا أو يكون أمر خاطف فرا إنه هو صومالي لقى قادن المهيدة ودقال والله بيلك بسوي ذا إن شاء الله تعالى والآد بانكو سلام عيد مباركنا عيد وناكسن عيد وناكسن والله كل عام وأنت بخير طبعا عيدنا وعيد الأضحى المبارك وما لنت هذه الصدحات وبرامج كدور كوينكي واحترك بالشنا ويا شيء نصيب dad badan baa jira ciidan oo sariir saaran oo wheelchair ku jira oo salaada salaad ciid aan tukan oo guriga jiifa oo ka kici kale qaar baa ku jira kooma ku jira oo qayboba ku jira oo waxba ogeyn dadkeena buka ee jilicsan ee jiifa ee u duceeyno dad baa jira kaligood guri habeen iyo maalin ugu noqoto cidla oo cidna caruurna haysan waxana dhalin lana guursan calafkoodi insha Allah taala dad waxa jira lamaanooyin kala tagay baa jira oo inta wax u qabteen dumarkoodii ay ka tageen maxay tooy xanuun ku riday oo iyaguna guriga xanuun la jiifay inaan inta u duceeyno iyo dadka baahan ee wadankii jooga walaalo inuu Ilaahay kala dhibaatada ka saaro insha Allah taala قولوا آمين يا سارة الله يعطيك العافية والله يساعد أهلك أنت كمان يا رب ما عاوزة تسلم أي حد يا سارة أسلم عليها أيوة أمك في الهواء مباشرة تاخذ فرصة استفيدي بشكر صومالي كيبل بس نحن ما في أهل وأنتوا أهلي أصلا أهلي صوماليين أهلي إلهك أنا كنا صاحب أهل بنكلنا إن شاء الله تعالى اوكي سارة العيد طبعا هو عجيب يعني العيد فيها تسامح في ناس في العيد ما تتسامح استغفر الله العظيم نعم. الله يهديهم يا رب ربنا يهديهم ويحنن قلبهم وربنا كريم ان شاء الله ربنا بيهديهم وحيوريهم الطريق الصح وانه لازم يتسامحوا لانه الدنيا ما دايم الحد وكل من عليها فان ما أظن إنه في حد بيجي عليه وما يقدر يسامح أخوه المسلم لأنه في نحن مسلمين وربي الكريم. إيش رأيك صار لو أحد قرض عليك لكن دخلت على عيد المفروض يعني لما تخش العيد خلاص صفحة جديدة. أكيد. يعني تفتح قلبك يا أخوي يكون قلبك أبيض يعني. أكيد. إيش أكيد. الناس اللي ما عندهم قلبهم جامد ما يسامحوا سبحان الله. الحجر. أقول إنه ربنا يحنن قلبهم ويهديهم للطريق الصح وإنه ما يتأثروا بالحقد وبالكراهية لأنه ما بتدوم لأنه ما في حاجة أصلا بتدوم في الدنيا دي إلا وجه ربك الكريم وبس.
الله كريم الله يلاك وبركة تليفوننا كتير بود إنجنير بشير هلا والسلام عليكم عاد بنسوي وين قفك هلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عيد مبارك مقعاء عيد مبارك ولا فاطمة فلسن بلا هذا أم فلسن ها أم فلسن ما يعني فلسن اللي هذا أنا فاطمة فلسن عاد بنكوس وين فاطمة فلسن يا والله هكذا شوكتها ولا على لستر بان جوجا وين ودا سلامة يا أديقا إن أنت السودانية دا ماما ذكر دكتورة دا مرحبا أنا كلهم سلام إن فلسطين فاضل فلسطين محاد كيف إذا ما أنت عيد ولا ما أنت بحد عيد كنت لنا برامج كنت نصيبه يا شيء سنين ها ما شاء الله ولا ليدين كانت تكون بلا يا عيد وناكسن بان جن لا فاميلي جاي قدام بس سلام يا أصحابتي إذا كل أديقنا عاد بنكون سلام يا أنا aad baan kuu salaamaya walaalo dhammaantoodna waxay ka maqlayaan TV-ga Soomaali Cable baa ka dhageysanayaan iyo barnaamijka doorka haweenka iyo waxtarka bulshada oo maanta nasiib maalintii saddexaad ee Ciid al-Adha al-Mubaarak u yeeshay nasiib kulli caam وانتم بخير walaalo كل عام وأنتم بخير ولا جزاك الله خير وياك حبيبتي جزاك الله ألف خير وكل عام وانتم بخير إن شاء الله هذه الفلسة تقول لك عيد مبارك عيد مبارك لكن احنا لسه مستنين فاطمه من هالقيس تتصل وتسال سؤال لان فاطمه دائما تتصل في كل برامج في اي حلقه تجيب شيء تساله ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها ونسوي لنا فاطمه ان شاء الله تعالى ان شريف هيادنا maxaad oranaysaa asxaabtaadii dadkaagii ehelkaagii aqaaribkaaga hadda soo kobid waan waxaan noqonaynaa ama dhageysamay dhageysamay waqtiga badanaya waxaan u toogaynaa kulankeena ilaahay meesha ka dhiga falfaariqaad waaba kala daadsana ilaahay inuu meesha kulankeena ka dhigay sanadkan sana mubaarak noo noqdo Soomaalida ma iska kala daadsan laakiin insha Allah bidii hay kaasa ilaahay ka tooga yani in kulankeena meesha wada noqdo kulligeena isla wada iidno isla joogno is maqalno insha Allah ka waran shariifad dad badan baa ciidan xanuunsanaya oo ana ciidin oo wheelchair saaran kuwa maxaad ugu duceynaysaa adigu hooyahan ama qof ilaahay garanayo dadkaaga adigu kula joogan laakiin dad baa kaligood ciid meel cidlaa ku ciidaya dad baa dhibaato ku ciid dad baa oohin ku ciid dad baa ciid ba aragba waa maxaad ugu duceynaysaa walaal khayr Allah ku siiyo ducada المؤمن way kacda moogta هاي دعاء المؤمن يعني دعاء الغائب للأخ وحمد الغائب مضمون صح قفك مقان هدي له دعاء تدعي أخوك بالغيب شيء كويس يعني مقبول ويا من مقبول نعم مقبول الله يقبل هذا إن شاء الله كاس سبحانه توجينا إله هانو توجينا هدي صلاة دينك السجود طريقة مرية أو حتى صاول حنوصل وقت كسر بس الدعاء قال حتويها يعني واحد يدعي لأخيه حتى بالغيب حتى مش مفروض لازم يعرف يكون أهلك يكون صديقه لكن المعرفة إنما المؤمنون أخوة قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما المؤمنون كلنا أخوان حتى الإنجليز والكفار يعني كان لنا عد وضعنا قف هدول باتمنى أكيد كلنا يعني لعل العسى سبحانه وتعالى مرة ترتفع الله سبحانه وتعالى ياخذك الدعاء كل واحد عنده النية حاجة في قلبه الله يعطيه اللي في قلبه صح يا سارة؟ أكيد إيش نيتك أنت إن شاء الله إيش ولا أنا نتي أسافر وأشوف أهلي إن شاء الله يا رب ادعوا علي إن شاء الله ودعاء سارة ها شوف أهلها أشوف أهلي دي أهم حاجة هذولكوda soo aragtay إن شاء الله تعالى إلهي dad badan oo aniga barnaamijkayga ku xiran baa jiro ducadooda kacdaba ما شاء الله oo markaa إن شاء الله تعالى kici doonto إن شاء الله تعالى بإذن الكريم iyadoo reerkooda soo aragto qof walba adduunka meel buu ka naaqosan yahay qof baa wax walba isku haysta aana dhargayn oo jeebkiisa buuxa الحمد لله رب العالمين بأن لقيه لأن أباهم هل من مزيد في ناس عندهم كل شيء لكن ما بيقول الحمد لله رب العالمين يبون يصيرون مرحلة ثانية ينطرون شيء يعني أعلى منهم كوان وقت القرآن كل وش هذا وابد كاس وابد ما درجوين ما درجان به هنا وحوم قاطع من المزيد إلا أنت عيد ولا يسوي تشبعهم وركع عيد مبارك من الله كل عام وأنتم بخير هل كان نوحنا كسلامي ولا شيء منك يسوي يمكن يسوي هذا عيد مبارك ولا دقيقة عبد الصمد سعيد بسلامي ولا كل شيء مريكن كي حاسك يسي عروتيسة وحنا سلامة يا دمان أصحابتي هذا فيسبوك أنكو صاحبنا خدك تليفون كانوا يقولنا هلا والسلام عليكم ألو حبيبتي ألو أيوة السلام عليكم أهلا وسهلا حبيبتي عيد مبارك عيد مبارك ولا مقعة ولا العاشة عاشة هكذا شوكتها لندن بين شوقة aad baan kuu soo dhawaanaya caasho walaalo waxaan ku leeyahay ciid mubaarak kulli caam وانت بخير وانت بصحة والسلامة حبيبتي تفضلي وعاشة محمد from London دوحنا كلها جور جرتي عاشة حبيبة قلبي كيف حالك عاشة ولاله كيف حالك كيف العيال كيف زوجك حبيبتي وسلم على البنات اللي معاك بعد ما شاء الله عاشة طبعا انت من اهل الدوحة عاشة برار اد بنكون هذه صديقتي من ايام المدرسة
اسكول منهاجنا الله يخليك حبيبتي الله يا عاش والله الى الاويان دون يا عاشه والله العظيم بيبكي والله العظيم الله يعطيك العافيه يا عاشه يا حبيبتي تسلمي طبعا يا عاشه اليوم معاي اخت من السودان طبعا اسكول كنا waxaan ku dhigan jirnay macallimiinta السودان بينو كان المدرسين ما شاء الله كثيرين الله يخلي اهل السودان ها الله يعطيك العافيه الله يخليك سؤال ما كودني عاش خليني اسال سؤال عاشاي marka السودان ciida waynu garanayna carabtan joognay alaabtan qayrin adigu lama dhamis waxaan leeyin baarkii wadnaha iyo waxaan la cunay ciida akaltay wala ma akaltay سمعت ها ني الوعنايو ها سمعت حبيبتي سمعت عنه ما جربت لكن سمعت مع فلفل بيعملوا مع شطه وني صح جابت كده ايوه اكيد والله ما جربت لكن اكيد شكله طعمه حلو لكن ده شيء قريب علينا ما شاء الله عاشا ومن اهل الدوحه من ايام المدارس كنا مع بعض في الايام المدرسه سنوات اخذنا مدارس ايام كثير ما شاء الله horta maanta aad baan u faraxsanahay عاشا inuu qofku soo galay reer dooxa مثلا عاملsid اهلك مثلا عاملsid عاشا حبيبتي الله والله سلم على الجميع سلم اول على اخا عمتي هويدا سيدة عبد تمير ابو دمان اهلكي ودن اسلم على والدتي فاطمه حاشم اخواتي جميعا والاهل وكل من يعرفنا ان شاء الله عيد مبارك والله يعساكم من عواده عساكم من عواده وكل عام وانتم بخير حبيبتي وان شاء الله يعيد علينا جميع الاعياد انا نظام سلام يا حبيبتي انت زوجك وعيالك واهلك كلهم الله يخليك الله يسلمك حبيبتي الله يعطيك العافيه عاشه مبارك جزاك الله خير عاد بنكون سلام عاشه ولا عاد بض ما شكرا حبيبتي مع السلامه عيد مبارك هذه صديقتي عاشه ايام المدرسه تخيل دوحه ايام المدرسه يعني اسكول baa wada dhiganay inta soo sano ma sha Allah aad khadkii ugu dambeeyay aad baan ugu faraxsanahay maanta khadku soo galay aad baan ku salaamay waa si gaar ah oo kaliya laaba asxaabtu iyo dadka wax kula soo dhigtay kursi kula soo fadhiyo dhowr sano way kaaga duwan dadka kale marka dadka iska xigna insha Allah taala kulli caam inta bixir halka waxaan ka salaamay reer dooxa dad igu gaal aniga igu qaali igu insha Allah taala aan leeyahay waxa doonaysaan ba Ilaahay subhanahu wa taala qalbigiina saafiga iyo needina haydin mariyo aad baan idin jeclahay asxaabtaydii waxaan salaamaya kala saaxiibada Sucaad Aljuur oo joogta magaalada Abu Dhabi iyo walaasheed iyo Amaal oo joogta London iyo Sucaad iyo habloodi kale oo dhammaan salaamaya ahli Imaaraat baan aad u salaamaya kana si gaar ah qurux badan sidii quruxda badneed aan wada joognay fasaxiga gaabnaan ku maqnaan Dubai waxaan salaamaya kala caruurteeda aan marna ka maarmin Ilaahay hay barakeeyo iday idinkana idin daa insha Allah taala Sara في نهاية البرنامج ايش تسلمي لان هذه اخر مكالمة كانت عاشة من لندن. أشكر أول شيء القناة كيبل صومالي كيبل صومالي كيبل وبشكر المذيعة أمل الله يعطيك العافية حبيبتي والضيفة برضه بشكرها وبشكر بشير بالضبط كده وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين وإن شاء الله ينعاد عليكم بالامن والبركات ان شاء الله. الله يخليك الشريف عبد الله محمد سلامه وقلتي بقولي برامجك ان شاء الله تعالى كل ذكر انا وضع سلامه يا مع ولا شيء امل الله يعطيك العافيه عند الاخت ساره وكمان المكان الذي الان تشرفنا به الاخ صومالي كيبل كيبل اخ بشير وكمان بسلم كل الناس اللي يعني بيشوفونا ويتصلوا فينا كمان بسلم عليهم وكمان بسلم على اختي اللي عايشه مسكينه في هولندا مع عيالها منى الله يعطيها العافيه عيالها كمان ورده موسى وانور موسى وجيهان موسى وابنها الصغير اللي يعني ما شاء الله الكتكوت الصغير هذا اسمه رؤوف نور كلهم يعني الله اشوفهم ان شاء الله يعني نكون في زي ما قلت لك انا احب نتجمع في مكان واحد يا صور زي زمان. الحمد لله رب العالمين إلهي بما هذا يسكر سبحانه وتعالى نسيه وقت قروح دبنا لنا الهوده كلا قادنا سلامة عيد ما أنت أضحى العيد المبارك ما أنت هذه صدحات برامج كدور كوينك واحترك بلشون ويا شيء نصيب قروح بدن وحن هذا العلم مركو ورس إلهي سبحانه وتعالى يستغل لأنت أما عافمات كن نسيه أما أود نسيه هلك أوصف السنة الحمد لله رب العالمين لشكرتم الأزيد أنكم مرقفكم هذا الحمد لله رب العالمين بالله وحبوا بركينا وحن هذا العلم كلا دمان أمضى الصومالية لا إله إلا الله محمد رسول الله كأشهد أدونك الدافيسة شوكته كل عام وانتم بخير بالله انتم usoo galay barnaamijka ku xirnaa sida gaarka ila soo xidho waxaan ciid mubaarak waxaan u mahadcelinayaa kala mar labaad mar saddexaad al-ukhta al-aziza Sara oo iyaduna barnaamijka doorka weynta maanta dhadhan fiican u sameeyso from Suudaan طبعا Suudaan iyo Soomaaliya waa laba walaala saan idin sheegay oo dadkeena way jecel yihiin isku dhiidbeen isku dhaqan been ka guursada dad aad iyo aad u xalaala iyo Shariif oo muslim baan iyaduna aad iyo aad u salaamaya waxaan salaamaya kale Bashiir oo noo soo noqday khayr Allah siiyay Maxamed Yar oo halka fadhiya Sheekh Mustafa halka fadhiyo ka maqnayn anigu amalkaysa oo idin jecel oo kale laba idin jecel waxaan idin doonayaa wax walba oo khayr inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala siiyo
wax walba sharana ilaahay subxaana watacaala idinka fogeeya hablaha soomaaliyeed noolaada dhibaatada ilaahay naga yareeyo ilaahay qof walba oo dhibaataysan ilaahay unba subxaana watacaala buuxinaya baahidiisa inuu ilaahay subxaana watacaala yidhahdo ilaahay waxaan ahay ugu dhacay iga saar alxamdulilah qalbiga saliim ka noqda maskaxda saliim ka noqda dariiqaaguna saliim buu ku noqonayaa intaanu barnaamijkan oo kale kulmi doono waa anigu amaalka isoo idin jecel oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.